laba deegaan oo cusub ayaa gacanta dowladda soo gashay. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa habeenkii afraad ku hoyanaya galmudug khawaarijta deegaanada ay kaga harsan yihiin. waxyaabaha runtii aan aad ka ula yaabnay waxaa ka mid ah labadaas magaalo iyo magaalooyin kale oo badan oo yacni maaragtay la xoreeyey. dadkeenna waxaan ugu baaqaynaa in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda. deegaanka ceel la helay oo aan haddaba kala hadlayo, labadaas degmo sidaad ogtihiinba khawaarijtu waxyaabaha ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in ay dhagartooda waxaa ka mid ah in ay bismillahi raxmaani raxiim aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin SNTV telefishinka qaranka Soomaaliyeed. sida aad la socotaanba waxaa dardar ku socda howlgalkii xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin khawaarijtu sida uu horeyba u ballan qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqor oo runtii ay ka go'an tahay in dalka ama guud ahaan deegaanada galmudug laga sifeeyo ama guud ahaan dalka Soomaaliyaba khawaarijta deegaanada koonfurta maaragtay galgaduud waxaa ka socday howlgalladii maaragtay lagu xoreynayay. alxamdulilah shukr rabbil caalamiin. hadda waxaa gacanta ku jira laba deegaan oo cusub ayaa gacanta dowladda soo gashay oo kala ah deegaanka ceel garas iyo deegaanka ceel la helay oo aan haddaba kala hadlayo. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa habeenkii afraad ku hoyanaya deegaanada ceel la helay iyo maaragtay ceel garas. shalay waxaa maaragtay joogay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha aan idhaahday galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qorqor taliyaha maaragtay nabadsuudda qaranka. intaasuba waxa ay jiidda hore ee furunta ah ay ugu jiraan in ay maaragtay ka dhabeeyaan ballanqaadkii ahaa in ay dalka ka sifeeyaan maaragtay khawaarijta. aad iyo aadaan maaragtay ugu mahad celinaynaa sida maaragtay ay uga go'an tahay madaxda qaranka iyo maaragtay madaxweynaha galmudugba in laga xoreeyo galmudug khawaarijta deegaanada ay kaga harsan yihiin si deegaanada kale ama maamulada kale loo bilaabo iyagana maaragtay howlgalkoodii. labadaas degmo ayaa hadda ku soo biiray gacanta maaragtay dowladda. ilaahay mahadiis maaragtay si buuxda ayaa maaragtay loogu hayaa gacanta ammaankooda. degmada ceel garas oo kaleeto maanta ciidamada waxay ka sameeyeen howlgal maaragtay lagu sifeynayo magaalada. sidaad ogtihiinba khawaarijtu waxyaabaha ay adeegsadaan waxaa ka mid ah in ay dhagartooda waxaa ka mid ah in ay meelaha ku aasaan miino iyo waxyaabo maaragtay aad u waxyeelaya dadka shicibka ah. ciidamada sida gaarka ugu tababaran ayaa hawshaas ku howlan oo maaragtay magaalada sifeynaya. insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa marka maalmaha soo socda in ay dadka shicibka ay dib ugu soo laabtaan labadaas magaalo si maaragtay ay maaragtay u soo laabtaan noloshoodii. waxyaabaha runtii aan aad ka ula yaabnay waxaa ka mid ah labadaas magaalo iyo magaalooyin kale oo badan oo yacni maaragtay la xoreeyey. haba yaraatee kuma aynaan arkin wax shicib ah. shicibkii waxaa afduubtay al-shabaab oo ay ilaa ay haddeertan u afduuban yihiin. waa nasiib darro meel aanu dagaal ka dhicin oo aan la dhihi karin dadku dagaal ayay ku barakaceen oo khawaarijtii si fudud ay isaga baxeen in dadkii maaragtay ay ka daba cararaan oo ay yidhaahdaan naga hari maysaan raaca si ay gabaad uga dhigtaan. arrintaasi aad iyo aad ayay nasiib darro u tahay. dadkeenna waxaan ugu baaqaynaa in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda dib ugu soo laabtaan magaalooyinkooda ganacsigoodii ay dib u bilaabaan dowladnimadana ay soo dhoweeyaan. arrintaas ayaan maaragtay ugu baaqaynaa. dowladnimada macaankeeda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inay dareemaan neecawda dowladnimada deegaanadaas in laga dareemi doono. waxaan u geyn doonaa adeegyadii maaragtay gargaarka sida raashinkii caafimaadkii biyihii iyo waxbarashadii iyo adeegyada kale ee asaasiga u ah dowladnimada. insha allahu tacaala dadkeena marka waxaan ka codsanaynaa in ay maaragtay arrintaas ay maaragtay dowladnimada ay soo dhoweeyaan khawaarijta gacantooda ay ka soo baxaan ay ka diidaan afduubka iyo maaragtay dhibaatada ay
ay ku hayaan intaasaan ayaa marta ugu baaqaynaa dadkeenna insha allahu tacaala